السلام عليكم asxaabta meel kastoo dunida ka joogtaan bal ku soo wada ciyaaraha waxaan soo qaadan doonaa akhbaaraadka ugu dambeeyay Kamal Daariga ku jiraan maxaa laga yiri Manchester City saaki goorra nimankii lagu kala baxay Chelsea ugu yaraan finalkeeda ma jabno seasonkan Chelsea koob kale u socotaa waa ku hada Joe Pedro Blaise gadanayaba Pep Guardiola uu fashilmay daacadii ninkan waa duqoobay inuu iska dira wuxuu taraya lama arko la iskuma hayo Pep inuu ahaa tababar weyn laakiin waxaan ku sheegay Pep Guardiola inuu zeerayahay Premier League waxaa dambe ku haya nimanka inay soo socon mar kale wax walba laga yiri Man City baan eegi doonaa mucjisadii ku dhacday Inter Milan ku dhowdo war dadkii dhan la saadaalinay waa ka wada haraye badan aragna wadada kale si Arsenal warkiis waa soo baxay waxaan eegi doonaa arrimaha kale iibsiga ciyaaraha min Arsenal, Manchester United, Barcelona iyo waliba Chelsea oo haddana saaki suuq kale weyn ku jirta lacag bay haystaan asxaabtay subscribe kana saara kuwa channelka cusub ugu jiray share iyo like isku dirkan asxaabta kale ciyaaru jecel bal barnaamijkeedu gaarsiina waan idin salaamay maqaarkii baan idin waxweeyaan ciyaaruna saakay shoog weyn baa jiray runtii iyo waxweeyaan nimankii Manchester City ah bal sida ugu gudbin Real Madrid ayaa caaw waxay ciyaari doontaa ciyaarta kaliya habeenka waxay ciyaarayaan 10 habeenimo iyaga iyo Juventus baa ciyaaray runtii waan arki doonaa xogaa tartanka mucjiso iska noqdo siisa kan runtii وصوبته ترتكان أخر بدنيا يعني إنك استول إيديني ومرايك لجو إيديني عيارها كدعية يعني إني جوك سنيان ولجو إيدين كرا لكن مركا وين كيرير كالسكود درا شو جام كدعية إنتر بانو كشوك سنة من ستيال لجو دبدري مدريدنا يونس بهبين كالعيارة ينتمك هبينيمو لبدا كوح عيارة تاريخ ومن لبا كميدا لبا كوح أو ترتمدا يوروب أد سوق سو أرك جربي هاين تاريخ وتبي تتوجر عيارين سيد جونتس بعد كاتي تتوجر نوعات كاتي ريال مدريد بل سدحدي جير قدام بي مر يوفا ايات كاتي مر ريال بعد كاتي مرنا هدنا ريال بعد كاتي ولبا ريال iyo kooxu kale waxay maqlayaan war fiican saakay waxawayaan koobkan waxay rabaan inay shabadan inta ku xirtaan bay doonayaano biishi xataa xagaa bay jirtaa على حال ومركي ugu horeysay labadan team Juventus Madrid ay kulmayaan tan iyo wareegii damaadka 2017 iyo 18 السيد العجوز وجوفنتوس markii ugu dambeysay badan ay ciyaarayeen Champions League waxawayaan Juventus ayaa badisay laakiin 4-3 celis bay kaga hareen tartanka oo Madrid ayaa soo baxday waliba labadan kooxood kii soo badiyay wuxuu ku dhacayaa mataqana wareega sidamaadka midkood Dortmund iyo FC Montreal ma kooxda Sergio Ramos ayuu ku dhacayaa marka waxawayaan wadadu waa iska easy يعني labadan wareega ugu adag ay la kulmayaan wasama finalka ama xagaas markii wixii ka yimaado Bayern Munich iyo PSG ay ku dhacayaan sanadii ugu dambeeyay Juventus awoodda badneed ee xoog badneed lama hayo aad bay u liitaan waayadan dambe markii ugu dambeysay Real ku guuleystaan Serie A oo isku daldalin jireen waxay 2019 iyo 2020 caaw Mbappe ayaa la sheegaya ciyaartii inuu ku soo bilaaban doono kadib bariyaan dhan uu xanuunsanaa mashiinka goolasha waa yimaado ugu dambeyntii Madrid waa cabsi xilli Xavi Alonso sidoo kale uu saacad ugu dambeeyay ka hadlay arinta Rodrigo mustaqbalkiisa aan la hubin ka ganuunacaya keedka wuxuu leeyahay haduu ciyaaraya hadaanu ciyaarin aniga go'aankeeda iska leh marka war cad weeyaan laakiin wuxuu sheegay ciyaaryahan important uu yahay kooxdiisa uu tilmaamay marka Arsenal baa ninkan doonayso taasna waa taa marka Madrid arki doona Jones wuxuu ku soo kordha laakiin saakay shock ayaa adduunka ka dhacay Manchester City waxa reebtay Al Hilal ayaa reebtay runtii 3 gool iyo 4 gool baa lagu reebay Man City waa iska game Man City dhabada aragto ku gama mid kale waxaan fahmi waayay kooxda reer Yurub kooxda reer Sacuudiya daacadii Al Hilal habeenkii Madrid waa aragnay laakiin habeenkii Madrid iyo habeenkii caawa bay zaid ahaydba Manchester City dhan lagu sheegayba bulkeeti laga dhigay anu waxaan fahmi waayay yaa reer Sacuudiya yaa reer Yurub inta badan Yurub waxa la yiraahdaa ciyaartooy la yiraahdaa xoog badan la yiraahdaa Manchester City caafimaad ma qabto ninkii ciyaartaas daawaday baa ku sheegi kara inay Man City ashtahay inaan u ahayn wasoo Cristiano ku dhahay Sacuudiga dadka aan ciyaaruhu daawan iyo dadka ciyaaruhu wax ka aqoon iyo dadkan ciyaaruhu Sacuudiga daawan baa ku dhihi kara horyaalka Sacuudiga kamid horyaalada weyn dunida laakiin wuxuu kamid yahay horyaalada weyn dunida waa ka Balfiir Hilal Madrid Brazil la gashay nimankaana 4-3 ku kala dirtay habeenka عيب عليك باك دعدي مان سيتي والله مان سيتي ساكيا مان سيتي واسرجبتي waxawayaan Arsenal iyo Liverpool marka haday maqlaan waxay leeyihiin nimanka ma soo dhaw waana ku sheegay inay wali markaan soo dhaween caafimaad nimankan wali ma hayaan warkooda baa duu saasi haya wayaay wala meesh mara ku dhacday
ciyaar meesha ka dhacday dad aragtid yaa City intay gool ku hormartay waxa la Kenny Gish fiiri intuu gool u bilaabay Bernardo Silva inta Ken la kan marka la soo laabtay Gish la siiyay waliba xataa ciyaartan ciyaari ma taqaan oo ka maqnaa laacibkii dhamaa ka maqnaa meesha Salim Al-Dawsari ayaa ciyaarta maqnaa kabtankii dhanaa maqnaa ka war haduu joogo lahaay waryahay Zagi waryahaas waa tababaray internet war counter attack ba nafta looga qaaday Man City maanta saas ya warya carabtuni xoog badnaa waa ogahay rag baa ku jira laakiin looma bardhay kar City still City ciyaartoy badan ya marka wali marka caafimaad ma qabaan saas loo marka Dawsari maqnaa ka war ya ayaa hadaa nimankii saas loo galay madaxweynaha FIFA uu daawanay habeenka shock Inter ba horteed la reebay waaka madaxweynaha FIFA hadda uu qosol garib wahay wuxuu leeyahay wow waxa la caynay koobka kan baa la caynay wuu macna balka warama kooxii weynaaba kuwa lama filaan ka reebaya ya marka waa la yaabayahay markii goolkaas laba loogu bedelay wariya Malcom iska gala buuf horta Man City gool hayo meesha kuma hayaan alla gool hayaas muxuu zeerayahay wuxuu hataa qaba kar hataa maraaci karo horta City goolaas ma wadataa kaas diinku ma dhaqayso kaas kan kala laba ilaa ka goynayaan horta gool hayo meesha kuma hayaan ya markay kadibna Haaland baa u keenay waxa la aaday Extra Time Koulibaly ugu daray Foden keenay kadib hadana waxa laga dhaliyay gool gurguursha laga dhaliyay macnaha ayay wallahi Man City war Man City dad aragtay waa ku gama bay habeenkan iska ahaayeen waliba ciyaarta ninka ugu fiicnaa waxa qaatay Yasin Bano wataan ku dhahay Yasin halkaas joogo oo nin aad u halis badan waliba markii Inter la reebay video ugu dambeey kan koreeyay istilaad ciwaanku waa sidii wabiga hor muuqdaaba ciwaanku waa sidii waxaan lahaa ma taqaana waxay u badan tahay semi-finalka Chelsea iyo inay isla ciyaari doonaan Manchester City laakiin hadaysan mucjiso dhicin City iyo Chelsea semi-final hadii Kamal Dariga shoogna tusin goordhow shoogina uu tusay macnaha hadaysan Hilal aysan Man City ku kala bixin ya waxay u badan tahay labadan inay isla ciyaari doonaan baan u lahayn waka shoogi Bruno ku tusay marka Bruno sababtu uu leeyahay Bruniga wax kasta ka suurta gala oo waan calaabo marka waxaana sidoo kale maalinta goor ku sheegay warkii subaxnimo ee City ciyaarteedii aan uga hadlaynay sida kan oo kale waxaan yiri Pep Guardiola nimankaas ku xiriira oo tababare aan hal shax joogta qabin dacadii Pep Guardiola waa soo aruuray ya aamin walaal sanadkii hore waxaan ku yiri City meel ma tagayso joogtana laga gelinayaa horyal uu iska daayay hadii afarteeda sare hesho ay xillidan u dagaalameen haddana waxaan ku leeyahay Pep Guardiola tababar weyn uu soo guuleystay la isku ma hay taariikhda hore laakiin Pep ka hadda jira inuu soo aruuray baan ku sheegaya inuu soo aruuray aan ku sheego Pep Guardiola dad wixii wax ka dambeeya wax lagu ma hay waana sababta maadada uu yiri hadda Madrid iyo Barcelona joogi lahaa wajigan kuma joogi lahaa wala Raadela uu saxwa Pep Guardiola uma qalman ku yiri hadda City tababareed inuu ahaado dhacdooyinka ku dhacay Pep Guardiola marka hadda afiirsid historical uu soo sameeyay iska daa wixii la soo sameeyay iska daa historical asaga wuxuu ku dhahay ma taqaanaaba hadiibo aan xagaagi hore aan joogi lahayn Man City waba la ciri lahaa buu ku ribina City wuxuu cubaamadaysa waxaan soo qabtay Madrid iyo hadaan joogi lahaa Barcelona goora la Raadela uu ku ribina inaan ku dhaho marka Pep Guardiola waa soo aruuray waxa laga yaabaa leeyahay Maxamed maxaa ku dhacay kama hadlayna historical hore Pep hadda jir ku sheega kama soo aruuray warniga hatta waniga kaliya aad si saadaalin kartaa kooxdiisa Fabio Capello wuxuu ku yiri asaga ayaa kooxdiisa ka badiyay habeenku rabo asaga ayaan u badiyay kooxdiisa habeenku rabo sanadka hore baan ku dhahay midda haddana aan ku leeyahay subaxii hore waxaan ku lahaa warninkan shaxdu maalood ku soo galay Juventus ya shax taagan bay ahayd bal u fiirsa caawa kulay nin dhalinyar uu soo watay kolba ninkaas baasha la sixi doonaan islaha asiga xataa waxa weeyaan kolba taladiisa ma qaadano meeshii dhan saas uu jacburiyay marka hal shax toos ma qabo kooxaha waxay qabaan saf joogtay qabaan oo 12 oo titulaar ah oo garoonkaas lagu baranayo waa ninka garbiis wariya ma aragtay fiiri Malcom ma aragtay goor Barcelona u soo ciyaaray waa ninka inuu orday goolka ka dhalinay war Malcom kuma dhacan ku yiri safiinka lagu sheegay duku lagu sheegay ku yiri Malcom waade Malcom Barcelona marso mid xoog weyn Brazil waa kuma dhacan intuu saas ugu galiyo ku dharbaaxay goolka ya marka ku dhaay nimankaas garbo waxtar leh ma qabaan been bad moodaysa hal waxtar oo garabkoodu leeyahay ma jirto waliba ninka ku haysta garoonka duku ugu dhameeyay ciyaarta isagoo waxba kordhinaynba saas uu la digdig leeyahay Brunigiis dhan jaama ku furan qajajajac qababac Bruni kastan bawso gilna horto istaaga waa marshayna marshi iyo gili ka bixiyo ku haya maanta dhan marka calay taal aamin City wali ashmaahan
سيتي هي هزيري ولا أشمعها نمكا يا جول هاي ماشي لقمة هايو دافع زير أبوها كونتر أتاك أنا أفتح لوقا هذا وصوت وهبكي أنت وعيارسين بالكور عرب يكوكل على سقوط داري ومانا laga soo gadgatay awaalay marka على أي حال يا marka anigu waa yaabay mar dambaan arkay waxaan la wiraaba kuwan san u weerartamay manstima dharkan oo gashataan isla ma baahanba ilaalaaba aniga koox Yurub igu noqotayba ya marka si yar ku sheegay arabtu waa aad bu xoogantahay buu ku yiri marka على أي حال City inay zeera tahay baan ku sheegaya waxaan ahayd City kooxda kaliya ee perfect record kusoo baxday bay groupka ee wad badis ciyaaradoo dhan markaad fiiriso koox dhan ee perfect kusoo baxday ee dansaas loo galayo والله markaa bay meeshu maraa ku dhacday oo meeshu waa lagu ceeboobay waa la ceeboobay runtiyo kulay saacadu ma guriba wax wala ma taqana wuxuu muuqday horta ma ku dhahayo asaa Israel ma ku dhahayo yani oo macnaha inuu ku talagalo isku reebo ma ku dhahayo laakiin saacadu ma guruunacay oo wuxuu guruunacay ma taqana ya wuxuu lahaa macnaha koobka kooxaha adduunka waxaan ka baqaynaa inuu na saameeyo xaga dambe ya oo lahaa waana ka habeenka shaxdiisii isku dal wareeray runtii marka waan inana ما ninkaas weyn ba shaxdiisa la toosin karna habeen walba yahu marka kulay inta waa intaayo kulay jeerki oo badal ku soo galay isla markii gool buu caawiyay waxaas markaas labadan cunug maadna filiq ya iska leeyahay hal xab ma sameyn karaan filiq iska leeyahay labadooda ya hadna buuba ku furan jeerki soo galay saasa foodin loogu qaaday waana la runtiyo City marka sidaa ugu hareen xilli saalsana kor ku beegneed maanta oo kale markii Pep Guardiola uu Man City yimaaday waqtigiisii ugu haboona ninka waqtigiisii horay uu ahaa 18 koob ayuu ku guuleystay 1200 saashku uu kooxdiisa dhalisay 336 ayuu badiyay 532 kulan marka Pepkaas buu ahaa kan ninka naagta ka tagtay ha idin waalo kulay marka waxa weeyaan cib caleeg waa shaq waa wallahi saaki mar waa dhacday geeri doortay war malcaaw iska go ay nimankiyo wallahi mar waa ka dhacday marka Real Madrid جانس waliba Chelsea hada Joe Pedro tijaabada caafimaad mareyka ku maraa wiil koobka xataa ciyaar uu runtii ka waran Joe Pedro marka Chelsea hadayna shock ina meelaha ugu soo bixin cunugooda hore ka hor imaanayaan jag okay Hilal iyo ku Inter soo raba isqabana kii ka soo baxo isma final inta Chelsea jag wuxuu dhan jag horta ma ku soconaya ogaa laakiin sida u badan tahay Chelsea markii hore semi final baan lahaa final Chelsea waa jirta ugu yaraan marka hadaysan iyaga is dhumin reer maduuki hadayna iyagu is wareerin waa jiraan marka xaggaasna waan sugnaa kulay xaggaas kuwa ka imaanaya halis badan runtiyo waa arki doona kulay Benoniga marka caaw nimankii marada ka dhacdayo taas waa taa kulay Baldozario ciyaar laha maxaa ku dhici laha saas caaw garabka ugu walaaqi lahayo marka nimankii waxay sheegaan ma laha marka waxaan idin sheegay nimankaas wali ma caafimaadin Arsenal Liverpool waxaan idin leeyahay nimankaas wali caafimaad ma qabaane xagaaga dambe hawshiina jibaalkiina fashta kulay waa ka hadaba isku aadku sidaan buu waliba noqonayaa Real Man City ku soo kala baxday kuwan kalena iyaga isku sii laba mactiyo isku dhacay yani ilmaha isku dhacaya Chelsea balmaras chak Chelsea xaga kuwan waa kaay wadadaayo intaasu waa inta xilli Inter Milan saacadu meena shock uu ku dhacay runtii oo la reebay ya Lautaro Martinez wuxuu ka shakiyay qaar kamid ah ciyaartooyda Inter inay daacad u ciyaarin oo ay rabaan inay kooxda ka baxaan markaas wuxuu xanaaqay Lautaro Martinez wuxuu yiri war anigu meeshan waxaan u joogno koob u dagaalamo ya qofka raba inuu Inter joogo ya nimayo ha joogo ya oo ha dagaalamo kan rabina walaalo ha naga baxo wuxuu ku dhaga hadlaa leeyahay kan Turkiyaan ku dhaga hadlaa runtii ya marka ninkan meeshan rabin inuu iska buuxiyo kooxda marka ciyaarta dhamaatay ayuu lahaa marka madaxweynaha Inter presidentiga Morata hadlay wuxuu yiri qofka Lautaro ka hadlay waa fahansanay ruuxa kan macna Galatasaray rabta inay qaadato Turku ku soo celiso ninkan ya marka waa la hadli doonaa uu yiri kan hadii ma taqana uu rabo inaan kala tagnana ya dib kuma qabno waa kala tagayna wur macna marka Lautaro wuu shakiyay ciyaartooy Inter iminku jooga qaar baa bixid raba Inter aan raahday Interta oo Mareykanka Inter Miami iyo Interti Europe waa kaayo labadaba la reebay marka Inter waxay u tahay todobaad yani bil xunbay u hay Champions League ilaa ay kala World Cup laga soo reebayo marka waa ka shock ee soconaya halka kooxaha Brazil ku wali ay kacsan yihiin Fluminense oo ahayd kooxda Inter reebtay ayaa bogeedu waxay ku soo qoreen qoraal ay ku leeyihiin cabsi ma qornayda anagu cabsi waxa la yiraahdo ma banaqaanaba anagu waxaan ahay Latin America ay leeyihiin runtii waliba Thiago Silva oo nin qaaro 40 sano jira ya ayaa dadkii ka yaabinaya oo 3 kulan shabaq u ilaaliyay
kooxdiisa ilaa hadda maba la gaaray shabaqooda ugu runtii markay ciyaarta dhamaatay waninka iska ilmeeyay dhamaan ciyaartooyga iyo macal shaqaalaha iyo tababaru isaga xagiisa u ordeen afartii Brazil iminku Palmeiras iyo Fluminense ayaa ka jooga Botafogo iyo Flamengo ayaa ciyaaruhu ka haray way ku maadsanayeen waxaan arkay kooxda Fluminense ayaa ku maadsanaysay Fluminense waa kuwa uu ka tirsan yahay Thiago Silva ayaa ku maadsanaya qoliyo kala waxay leeyihiin runtii waryaha reer Botafogo iyo reer Flamengo ya si xalkiin yahay amal saakay leeyihiin runtii marka waka kala iibsigu marka waxa ugu weynaa Oli Watkins ayaa la sheegay in Man United ay qaadanayso hadii Rasmus Højlund ma taqaana runtii uu kooxda ka baxo waxaana suurtagal bal runtii Watkins in qayb laga dhigay heshiiska Marco Silva gabi ahaanba uu wada marayo Aston Villa marka Højlund waa ku dhibaatooday Manchester xagal soo dhaaf kaliya 4 gool Premier League buu dhalay marka war ayaa sheegay Manchester in Watkins ay doonayso waxaan laga yaabaa asaga Rashford inay isdhaafsadaan Man United iyo Aston Villa marka wargeysida Ingiriiska ayaa mid qorayo la sagaal jirkan inuu Villa ka baxay ayuu doonaya marka kolley Oli Watkins asaga baromba Watkins waninka 75 gool dhaliyay 184 ciyaarood Premier League tan markuu Villa ku beeray 2020 marka warkaas ayaa jira in Manchester ay doonayso dhaliye Watkins bayna xiiseynaysaa waa hadii Rasmus uu baxo xataa saa ugu dambeeyay ninkii daba ordayeen Mbuma waxa looga digay Manchester United waxa la yiraahdaa dad lacagta aan rabno oo 65 milyan keeni weysaan ya ninku waa noo joogaya baa leeyahay Manchester United taasna waa taa xilli Brentford oo marka yani arinta ninkan Mbuma ka digtay ayaa sidoo kale waxay saacad ugu dambeeyay directorka Brentford uu sheegay inay suurtagal tahay marka Manchester loo fiirin Mbuma inay ku raadsan tahay kuwan wuxuu Arsenal inay qaataan Christian Nodgaard waxawayaan ya aad bay u badan tahay macnaha ya in heshiiskaas inuu dhaco inuu dhicin inuu dhaco ayaa badan buu leeyahay runtii taasna waa taa Bayern Munich iyo Nico Williams waxa la sheegay Bilbao inaysan Barcelona rabin ciyaaryahanka oo Bilbao waxay doorbidayaan Williams in uu gacan galiyaan Bayern Munich ya watii xataa La Liga ay ku dacweeyeen Saudi ma xataa Barcelona sheegay in Williams inaan qaadan karin sabab ku aadan register gareynta ninkan uu yiri anigu arinta daan olmo kala ma rabo register gareyn maanta la iska daba ordaayo niman yahow wuxuu yiri haddaad yacni wuxuu yiri heshiiskayga aadan macnaha register gareynteeda aad xaqiijin karin ii sheeg haddaba marka asaga xataa wiilku waa cabsay marka heshiiska inuu suurtagal ahayn bay warku sheegay waa isbaroni waa suuq inta lagu jiro waxba isbedeli kara laakiin hadda sida taagan heshiiska Williams Barca ugu beeri karo inuu burburi karo la arkaya sida wargeysyo badan oo Spain ay leeyihiin maxay yeelay ninkan wuxuu ka cabsanayaa in lagu dhibtoodo sidii Olmo kale register gareyntiisa iska waqti dheer iska qaadato yaa laga baqaya marka Bilbao waxay la rabtaa ninkan inay Bayern Munich siiso Spain dhanba uu ninkan ka baxo xilli sidoo kale Bayern Munich la sheegay Luis Diaz hata in ay ku darsatay qorshaha waninka Cotton ciyaaro tartamada si kala soo dhaaf dhaliyay 17 gool ninkan Barcelona ayaa markii xitaa rabtay hadda ragga qaar ee Barcelona waxay leeyihiin Nico iyo Luis Diaz baan ugu fiicnaan lahaa bay leeyihiin runtii marka Mitchell baa doonaysa ninkaana kaasoo gorre u sheegay Liverpool markii xil ciyaareedku dhamaaday inuu siisakan u furaya koox walba inuu la hadlo marka taas waa taa Yamal haddana wuxuu mar kale qishay lambartay inuu qaadanay todobaadkan buu qaadanay baa lahaa Instagramkiisa wuxuu soo geliyay lambarteenka Ronaldinho ugu dambeyn inuu Messi soo geli doono laga yaabay ilaa dadka dhan waxay leeyihiin way adigu aad Messi ugu kaxsan tahay niyo marna Maradona marna Ronaldinho soo gelinaysa laga yaabay in markiisa ay soo socoto Messi laakiin wiilku ilaa hadda ugu kaxsan yahay leeyihiin runtii waana Messi oo saacad ugu dambeysana shalaydiisa Club World Cup ka hadda socda shoog ka dhacaya Man City iyo Inter la reebay iyo Atletico Madrid ya wuxuu sheegay in iyagu isku ciyaareen habeenkii labada gool aan lahayn ee Palmeiras aan la ciyaarin nuuri Janis waxaan haysan Urbishi aan wareegi karnay laakiin mar dabadina laga daba keenay inaga balaa isku dhibnay uu macnaha sax habeenkaas hadii ay ciyaarta badi lahaayeen ma isku aadi lahayn Paris Germany saacadana meena soo hareen xilli Messi ugu dambeeyay la sheegay in heshiiskiisa uu ka harsan kaniya 6 bilood war ayaa sheegay Messi inuu rabo inuu Europe ku dhameysto inta ka dhiman marka sanadka cusub la galo walow Miami ay doonaysaa leeninkan inay sii celiyaan bal heshiiskiisa 6 bilood baa ka harsano taasna wata waxana sidoo kale shock asaaka Chelsea markale hadan inay soo gashay Maxamed Kudus xilli saacad ugu dambeeyay Joe Pedro iyo Gettis ay ma taqaanaa nimankan oo gacanta ku dhigeen haddana saacad ugu dambeeyay Tottenham ayaa ninkan rabtay Kudus West Ham bay ka doonayeen runtii Newcastle ninkan way doonayeen Kudus marbi Sacuudi inuu hadda aado marka Chelsea still xataa wargarbar raadis badnaa nimankan Maxamed Kudus hata saaka Chelsea waa laga soo sheegayaa xilli durankii Cristiano Ronaldo teamkiisa kamid ah Fenerbahce uu hadda heshiis amaha qarka ugu saaran yahay war saxaabtay waa ka wixii ku soo korro ciyaaraha barnaamijyada ku noqon doontaan waar waxaan dileeyahay nabadgelyo